halkan ayuu ka soo bilowday hadafka mideeye ee hiigsigiisa ay hayaan. Tarbiyeen kadib tacabkii la geliyey waxa uu ku hagay dariiqa toosan. maxamed cabdi bataan oo 11 jir iyo cabduqaadir xasan cali boondere oo isna 12 jir waa saaxiibo xaafidul quraan wada dhigtana dugsiga al-dacwa ee degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir. masjid ku yaala isla degmadan ayay si joogto ah uga tujiyaan salaada taajudka. waxaan ku sugannahay masjidu jaamic oo ku yaala degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir gaar ahaan xaafadda kaambada. salaada taajudka waxaa habeen walba halkan ka tujiya cabduqaadir iyo maxamed oo hadda garbahayga fadhiya. wa ismaaciila walyasca wayuunusa waluutaa wa kullan faddalnaa cala alcaalamiin wa min aabaa'ihim wa dhurriyyaatihim wa ikhwaanihim وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. jamiicada masjidka ayaa jeclaystay codadkooda macaan ee ay kalaamka alla ku akhrinayaan, waana sababta keentay in masjidkan uu soo camirmo xilli ay adag tahay in dad badan ay masaajidada tagaan. ciyaalkan tajwidkooda iyo qiraa'adooda waa wax weyn aad loo bogay. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. إن تاجد ومشاهدين شو جامعة واو فرح سنة تمام كان دم بالله شيخ عبد الرشيد. شيخ عبد الرشيد علي سوف وحفي عن وأنا وحدتك دم أنا قولي تاجد ما تقول تمام كان دم بقى يكوه waxaana ka mas'uul ah macalinkii waxaan soo baray Ibraahim Maxamuud Cusmaan ayaana taas looga mahad celinayaa. macallin Ibraahim Cusmaan Maxamed oo ah macallinkii quraanka soo baray iyo Liibaan Cusmaan Cosoble oo ah maamulaha madrasada ay quraanka ka barteen ayaa nala hadlay. maanta alxamdulillah farqiga u dhaxeeya waxay tahay markii la ii keenay dadaalka aan bilaaway aan caawa mirihiisa guranayo. ilaahayna waxaan ka rajaynayaa insha Allah inuu ku daa'imo quraanka maxaa leedahay aad u sii bartaan culumtiisana ay u dhixgalaan in alla intay quraankaas ay yaqaanaan ajirkaas aan soo socdo aad ugu faraxsanahay. ilaahay maanta wuxuu nagu geelay inaan soo saarno wiilashaas aad arkaysaan oo hogaaminaya maasha Allah. haddana nasiib darro hoteelada iyo baddi liidoo naga agdhow aad ayay waxay ugu badan tahay in caruurtii ay meeshaas fasahaad iyo gabdhihii yaryar oo meesha iska imaanaya in macnaha fasahaadka uu ku bato. taasaana macnaha magaca ugu badan ee loo yaqaano markii cabdilcasiis ama liida la yiraahdo. marka insha Allah waxaan rabnaa inaan wax ka bedelno taas. xasan cali boondere iyo aadan cabdiraxmaan oo ah waalidiinta caruurtan ayaa sheegay inay dareemayaan farxadtii ugu sarreysay. halkan taagan maanta inaan filin aan saagino laakiin inkastoo xaafadda la dhijiray xaafadda Cabdilcasiis waa xuntahay. alxamdulillah maanta markaan taaganaan waa farxad aan soo koobi karin boqolkiiba boqol. waa farxad aan soo koobi karin waa maanta بلدي إلهي ما أنتم مقامين كسكوا الدنيا أدوكها شلمتها ما شاء الله ويلكي ما أنت صلاة الجناية من فيلين لكن وسهين لكن ما أنت ومن الله هذا على بكرة عادي
caawa oo ay tahay 27 bisha Ramadaan 1444 runtii waxay iga dhigan tahay caawa habeen aad u farxad badan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu mustaqbalka awlaadeena oo hor u sii dhiso meeshii hadda ay taagan yihiin meel kasii wanaagsan inuu ilaahay geeyo maxamed iyo cabduqaadir oo mudan dhiirigelin waxa ay u baahan yihiin in la sii kordhiyo aqoontooda diineed iyo tan maadiga ah maadaama ay ka go'an tahay inay horumar ka gaaraan nolosha ayna muujiyeen dadaal ay yar tahay in laga helo carruurta asaagood ah maxamed iidle universal TV muqdisho